Asalaamu calaykum kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Waxaan ku hadli doonaa fayraskan ka dillaacay dalka Shiinaha ee la magac baxay coronavirus. saddex magaalo ku yaala dalka Shiinaha ayaa mas'uuliyiintu go'doomiyeen si la isugu dayo in la xakameeyo fidista fayraska dhimashada leh ee coronavirus. فيروس كورونا القاتل لغز يحير العلماء في ظل صمت منظمة الصحة العالمية وتريثها في وسط in ka badan 100 qof ayaa u dhimatay coronavirus. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in ay xoojinayaan dagaalka ka dhanka ah fayraska. Fayraskani waxa uu ka bilaabmay waddanka Shiinaha magaalada Wuhan hal isbuuc kadib 7 January. Mas'uuliyiinta dalka China waxay caddeeyeen in ay aqoonsadeen fayras cusub oo ay ku magac dhabeen ama ay u bixiyeen coronavirus oo ah qoys ka mid ah fayrasyada keena hargabka ku dhaca xayawaanada sida doofaarka, mukulaalaha ama bisadaha. Ugu horreyntii fayraskani wuxuu ka bilaabmay suuqyada lagu gado ama lagu iibiyo hilibada kala duwan ee xayawaanka. Waxaa xusid mudan in dalka Shiinaha uu yahay waddan cuna hilbaha xayawaanada oo Alle naga xarimay sida doofaarka, dooliga ama jiirka, masaska iyo wixii la mid ah. Fayraskani dhab ahaantii waa fayras ka yimaada xayawaanada. waan gartood mahadsantahay jaamac waxaad iga warantaa Soomaalida intee lag baa degan Wuhan iyo gobolkaasba magaciisa aad ii sheegisay maxaaladooda ma ka warhaysaa Soomaalida xaaladeedu waa sidee meesha degan والله Soomaalida ardayda gobolka arday baan badan ardayda joogtana inta badan baa Soomaalida aad bay ugu badan Waxa uu ku gudbaa fayraskani hawada, taabashada iyo dheecaanka ka soo baxa qofka, waxaana ka dhalanaya qandho daran, qufac iyo dhibaato dhinaca neefsashada ah. Xanuun uu qofku ka dareemayo dhinaca xabadka ilaa uu ka dhimanayo qofku. Ma ogtahay daawade in ay jiraan muslimiin u xukumo dalka China oo la yidhaahdo muslimiinta Iigoorka, kaas oo ay la dhaqmaan muslimiinta si ka baxsan bini'aadantinimada. Ma u malaynaysaa in ay sabab u yihiin dhibaatada ay u geysanayaan muslimiinta? Fiidiyowga ku xiga intaynu ku kulmayno salaamaad. fadlan dadka cusub tahay channelkeena subscribe nagu qabo, like dana ku qabo si ay dhiirigelin nagu noqoto.